بسم الله الرحمن الرحيم. كل جيب هالكم ونبي سؤال وينيا مركو هو واحد سلام يا وزيرك وزير عمر شعيب وما تهاكل مرتين هو واحد سلام يا مرتدا كله هالكن وذا جبتها مسؤولية هالكن سكوا تبيت واحد ما تقول كنا نقبلي لبعض ريموت ورنتي مدي هاي هالكن واحد اللي تشوف الصومال لان mental support وأورور كلين قادر كسر محكمة كيسي أورور كان وضلك واحد بدك خبطي ayaa runtii barnaamijkan aan u qabanay inay wax ku soo bandhigaan wax qabadkooda ariga kale aan u qabanay horta magacayga Mashin Ali Xasan baa la yiraahdaa waxaan ka socdaa dalada guud ee Suudaan waxaan ay xogay si barnaamij dad badan way garanayaan laakiin haddana dee waa waajib waxa kale kulankan aan u qabanay abaara baan badalkii ka jira oo loo socotaa taaliftigeeda wasiirka ganacsiga وأرمها يوصل بحال نفتكر وأرمها شقدر يوصل بحال قيب كمدة سيدي أرمها أبارها رنتي ضلكي كتيرة دبعت بدن وجستي ضد يحولبا سيدي لوجا هذا لها لوجو كرم لها مركها الله بضع أرمات أيام كلهم كانوا أبصرني وحن شغلان لها إنتين بلاوين برنامج وحسي وضعنا رنتي كسول وين دونا سوماليلاند mental health support وإنه وش كده دون عقبات كوجا هالكاس اللي بس ودونا إن شاء الله دوحنا هيدا قرنا بالآخر من وها مركا آدي آد سود وهذا آدي آد دود مهتتين كلنا كنا كساقي بكشين النوت بعدين خاصة اللي موسير أيام ما يروتي آدي آد بعض المحطات هاي وعشان نقص بقطي سويدن وش وقع ضد بعض الرئيس المال لما متجاهد بدل وأكتفا ووضع وأنا وسير كنعسك marka qoloyinka ganacsiga waxa la yahay maanta chance fadhiista aad kula sheekaysataan wasiirka ganacsiga aad iyo aad u soo dhawaada ummatantii بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد هلكن برنامج هلكن كسي وضمن إن شاء الله كل يوم قريب عصوي من سواق علي مقعي واحد هذا آدم عقي يوسف waxaan ka mid ahay hawlwadeennada ururkan Somaliland Mental Health Support gaar ahaan waxaan ahay treasurer-ha ama dhaqaalaha hayaha marka insha Allah hataa doonaysaan ururka la xisaabtantaan insha Allah inaad weydiin doontaan insha Allah waxaana waa ka siin doonaa brief bal halkan ka soo bilownay imika mar hor bilownay halta halkan marna insha Allah marka insha Allah waxaan idin sheegi doonaa bal taariikhdii ururka iyo sidoo uu bilaabmay insha Allah hadii la yiraahdo هذا هو أركتان أوروكا وحلا بلاوي ولا بلاوي وطن كإنجليزكا كارهان مقالة كارديف اللي راهو وعانة وغرس لو يقانو ما دام أي حق قربتوج شوكتو نادو بسوه الريان وضياش سيمان كها المقالة أصلا كبلاوني وحنا بلاونا 2011 كي أم بحق رضاين لا حق لبض يكون يكوي طبعا كي صوتنا بلاونا وحيا هاي وحنا دين داوسيني فيلم كاس dhibaatada iyo waxaanu aragnay baan idin tusay taas casharad laga soo duubay gaar ahaan dhakhtarka Hargeysa laga soo duubay oo maxaan ku rahday gabadh booqatay oo Aamina Cabdilaahi la yiraahdo ay ka soo duubtay casharadaas aanu aragnay waan dee Hargeysa joogay badan oo waxa weeyaan intii yaraantaydii waan mari jiray dhakhtarka hortiisa waan mari jiray laakiin waxa kidaar ka weyn ka dambeeya ma aan arki jirin marka laakiin dhibaatada meesha dadka ku haysata iyo sida yihiin xaaladoodu ay casharadaasi runtii nadareensiisay dabeetana waan isku nimid aniga iyo maxaan ku raadin niman maxaan ka mid nahay oo gaar ahaan naas ciise geel jire oo ninkii ururka asaaskiisa ahaa dabeetana waxaan isla garanay marka in ururkaas la bilaabo sidiiba ururka ku bilaabmay marka waxay ku bilaabtay waxa weeye in shashangani la iska ururiyo oo garanaysa dadkaas garanaya la iska qaado si dadkaas wax loogu taro kadib dabeetana waxaanu goosanay in ururkii laga dhigo urur maxaan ku raadayay wadanka Ingiriiska ka maxaan ku raadayay registraysan oo ka diiwaan gashan arintaasi waxaan markaan dalabnay inaan arintaas sameeyno waxa la nagu xidhay marka inaanu keeno marka ugu horeysa oo bangiga aanu account ugu jiro 5,000 oo gini kadib dabeetana lacagtii markaan ururinay bangiga intii ku shubnay kadib ayaa ururkii sidii la noogu registrayay amba magaranaysa loo noogu diiwaan galiyay marka 2013kii ayuu ururkii sidii ku noqday inuu register galo oo maxaan ku raadayay lano ogolaado in la nasiyo inaanu arintaasi wax ka qaban karno
صوبها نقول اللي ينادوا صوبها كل فيلم وشيء إنه تسيء وأدوكتهن تذكرن وحويان ما دام عند خاطر دويسات تذكي أنا شرين دواء أي محمد هذا أودي أنا أين هليني وحكي لي سمعنا وحويان قفكي سيد قفكي ومحمد كحن حسين أنا أبد باديو تذكر كلاسي أنا حوية لنا ومكان سواء إلى عليه وهذا يسقى عنده هدوء عيد وحياة يسقى الله وصلنا قنايو إنه سلسلة ذاك حلو أرنت روتي أرنت هاسي وتذكر وحكوا كل في نعيب إدتك نعيب يهين معها وحويان حلق هلا أيان لوهين إدتك بدون كود ودكتي سيدو كله إن تدفر بدن يقوليها كحريه تدفر بدن أي محمد هذا إن سوريا يمالها محمد بنانكا وهو يقول يهاي أو حنتي يروبكي أي هالكاسي أي كوهيسو أن كذب تبتلو حنو أن ما دام أن مركا أوركي بلوني دوائن الله هاتو قول أم بميل أدونس إن أتقادو أن مركا قول كمو حندون إنه كانوا حويان إنه هجاشينو نلاش أي حالة ضد كسوماليات كنا لنا حنون كديمركا أم حنون كمسكحة إن لهجاشيو إن سي ولا شقين أيو إن كنا الحنون كديمركا سي ولا شقين يو ففن لوجا شقيو ووحويان ضد كانوا وحويان وحوي هايهين أورو أرنتو يجا جارة ويسوتو حويان ده عافمات واجود ومقارنة صارونتي هيدو أما محمد هذا يعني من سوالان أن حاجة عافماتكم سجودة أي مقارنة صار لوجا شقيا لكن وح أوروها وجارة وأرنتا كشقيا وده كيني كموتشرين مال مقارنة صار كل ومقارنة صار أما لوجا شقيا أو إنه ابنه علاج كده أو كله أي أدرنتي وضعك أو بدن تاسينا يجبروا حويان قفكي waxa isku dayaan inay sameeyaan in ay maxaan ku raahday marka hore quraan lagu akhriyo qofkii kadib dabeetana ay halka ku hayaan hadii marka uu qofka ay wax jin noqon waayo hayaa de waxa weeyaan qaadkii baa laga hayaa halkaas baa lagu haynayaa muddo qofkii dabeetana marka xogaa soo noqdo soo noqdo maskaxdiisa soo noqoto ayay madadkii magaranaysaa oo ehelkiisa ay oranayaan waanu ka saarana amba ay isagiiba magaranaysaa ay dadkii hayay oranayaan ninkan maanta wuxuu u gaaray xilliga laga saariyo laga saaro kadib dabeetana halkii uu ku noqonayaa halkii uu qaadka ka bilaabaya dabeetana halkii ayuu dib ugu soo noqonaya marka urur maxaan ku arrintan si buuxda uga shaqeeya oo wacyi gelin dadkii maxaan ku raahday wax loogu qaban lahaa uga shaqeeya markaan arrin aanu jirin ayaa nagu kalifay tan lafteeda kamid ah marka waxa weeye ururkii waa inuu yeesho marka qorshe uu ku shaqeeyo sideeba wax loo qabanaya markaas siyaabahan isla garan waxa kamid ah in loo doodo dadka xuquuqdooda oo la helo magaranaysa in loo doodo sidii wax loogu qaban lahaa talabaad in dadka la baro dhibaatada ay dadkan ku nool yihiin waa sababtoo wax weey dadkan way og yihiin guud ahaan dadkan dad qof maskaxda ka xanuunsan yihiin laakiin xaaladooda dhiibli ama si maxaan ku hoose looma wada oga marka dadka in la wacyi geliyo waynu ognahay oo waxa weeyaan ciyaalkeena ama dhalinyaradu waaba laga magaranaysa xarabaysa ama waxa weeyaan waa lagu ciyaaraa dhagaxaan baa lagu tuurtuuraa qof aad ogtahay in ilaahay xiskiisa ka qaaday waa laga yaabaa dadka waaweyn inayna badana ayna oran baa ka daayay bal nin xanuunsanaya oo ilaahay maskaxdiisa ka qaado maxaan ku caruur yareenayso waxa marka si dadka loogu wacyi geliyo taasina waa aad muhiim u ah waa soo taxawayaan dhalinyaradu inta yaryar yihiin iskuulada hoose ku jiraan iyo kuwa dhexe iyo kuwa jaamacaduhuba in lagu baraarujiyo in maxaan ku dhibaato dadkan haysata inayna ku ciyaarin inay maxaan ku raahday haddii wax u qaban karaan wax u qabtaan haddii kalena ay sidooda ku daayaan in la baro waa arrin aad u muhiim ah dadka kale ee magaran iyaguna la nool xanuun dadkan ee daryeela laftoodu sidii ay u daryeeli lahaayeen in la baro waa soo taxawaya qof xanuunsanaya waxa laga yaabaa qofka haya laftiisu in uu xidho bes laakiin cuntadan halka uu keeno wax kale oo magaranaysa dhaqankii kale caadiga ahaa inaan tusin marka qofkii uu noqdo qof dadkiiba ka takooran marka taa lafteeda in dadkii xitaa hayay laftooda la baro sidii dadkan u hayn lahaayeen iyadoo mid muhiim ah inaanu wada shaqayn buuxda la yeelano dhammaan cidii arrintan ay khusayso ama danaynaysa taasi waxa weeyaan iyaduna mid runtii muhiimkeeda leh waxa weeyaan hadduu urur samaysmo badana qofku dadku waxay jecel yihiin in iyaga ay magaranaysa magac ku helaan amba kaligood ay yiraahdaan anaga waxa qabanay anagu ujeedadaydu taamaha waxa weeyaan cidii markii hore gacanta ku haysay amba dawladda ha ahaato amba ha ahaato urur kale inaan wada shaqayn buuxda la yeelano dhakhtarka Hargeysa kale waxa ka shaqayn jiray urur nasiixa la yiraahdo oo dumar u badan runtii oo arrintan u kacay oo cuntada maxaan ku raaday waxa weeyaan u sameeya waxa bariga hore la siin jiray bariis cad baa loo karin jiray
waxay sameeyeen intay lacag iska ururiyeen ayay waxa u iibiyeen kaariyoonahaas dabeetana suuqa ma garanaysaa hilibka iyo khudradda ayuu maalintii dhex mara dabeetana hilibka qaar ku rida qaar khudradda ku rida way u keenaan dabeetana cuntadii dabeetana iyadoo maxaan ku raday suuga leh iyadoo macaan ayaa loo kariyaa marka dumarkaas iyaguna maxaa isxilqaamay inaanu taakulayno sidoo kale maxaan ku raday urur kala guddoon la yiraahdo iyagana inaanu la shaqeyno marka haddii la wada shaqeeyo ayuunba wax la gaadhaya laakiin haddii qof walba aniga gaarkayga u shaqeynaya meel la gaadhaya ma jirto taafraad in dadka maskaxda ka xanuunsanaya loo sameeyo meelo lagu daryeelo waxa weeyaan waxaan ognahay in daayad yihiin meelihii dadka maxaan ku lagu xanaaneyn lahaa amba lagu daweyn lahaa dhakhtarada waxa ka jira waa wax yar waxa filayaa waxa weeye dhakhtarka imka Hargeysa ku yaala ka Boorame iyo ka Burco iyo kulli kuwa kale private ah oo badnayn iyo ka isaguna berbera sidoo kale marka waxa weeyaan iyaga laftoodii capacity-goodii in la dhiso oo maxaan ku rahdaayay haday u baahan yihiin in maxaan wax wixii ka xun loo hagaajiyo in hadii u baahan yihiin loo weyneeyo taasina mid muhiim ah tashanaad in looga raadiyo dawladda iyo dawladaha qalab iyo wixii maxaan ku rahay dhimarka dadkaasi maxaan ku rahay loogu qaban lahaa waxa weeye waxa laga yaabaa inay meeshii la hayo laakiin aan la haynin qalabkii marka meesha lagu isticmaali lahaa amba dawadiiba aan la haynin waxa dhacda amba magaranaysaa intaan hawshan wadna dhacday annaga oo marka dhakhtarka Hargeysa doonayna inaanu qayb ka dhisno qaybta maxaan ka duusanay oo hadhow toona halka aad ka doontaan in aanu ogaanay in dhakhtarkii Boorame iyo maxaan ku raadayay kii Burco labadaba dawadii ka dhamaatay oo markaan la xidhiidhnay yiraahdeen wax dawo aan haysanaa ma jirto waxaan sameeyay dabeetana inaanu iska daynay kii aanu wadnay oo nidhi ilaayo kuwii already sii shaqeynayay aan dawo haysanin maxay mid kale oo magaranaysa u baahan in wax laga qabto dhisme ay ka dhis dabeetana aan joojinay lacagtii iyo wixii aan ururinay waxaanu galinay inaan magaran dawadii ugu iibino marka sanad baan u iibinay labadooda dawadii 2000 maxaan ku leeyahay 15kii bishii August laakiin sanad baa hay'adda sanadkii already u dhamaaday haddana waa in hawshii halkii ka socoto marka waxa weeyaan haddii aan gacmaha la isqabsan oo shilinka la isku darin wixii joogto noqon maayaan hay'adaha dhamaantood gacanta ku hayay ayar bay ka baxeen waayo iyaguba fan bay ku shaqeeyaan lacag baa loo soo dhiibay lacagta ma dawayska way ka baxayaan waxay leeyihiin hawsha ma sii qaban karno marka haddayna inagu isku filaanin inaga ayna hawsha la wareegin cid wax noo qabanaysaa ma jirto in la sameeyo qorshe dhammaystiran oo qeexaya sidii loo heli lahaa dhaqaale wax loogu qabto taasina waxa weeyaan waa hawsha aan bilownay markii ugu horeysay haddii aan la helin dhaqaale dadkan lagu daryeelo inaan waxba la qaban karin markaas taan maanta idin ku nimid Sweden u nimid waxa weeyaan inaanu arrintan idin soo gaarsiino sida uga qayb qaadan lahaydeen anagoo Ingiriiska markaan bilownay magaaladan ka bilownay Cardiff waxaan ugu xigtay Bristol baan ku xigsiinay Bristol baanu ka sameynay dad nala shaqeeya alxamdulillah way nala shaqeeyaan waxaan aan doonsanay hadana Birmingham saasile maxaan ku rahay Manchester Sheffield adu magaalooyinka waaweyn ee UK ku yaalo dhan waanu gaarsiinay alxamdulillah imikana waxay nala noqotay maadaama aynu maxaan ku rahay aynu in wada nahay Europe Europe intaanu gaari karno aanu gaarsiino gaar ahaan waxa weeyaan waxa ii sheegaya ku bushaareynaya dhakhtarka markaan dhisanay imika waxa weeyaan aanu Hargeysa laga aanu ka sameynay wax kulli waxa weeyaan waan u soo socdaay Sweden waxay noqotay dalkii labaad ee ka soo qayb qaatay ya marka Ingiriiska laga yimaado waxa ku xigtay maxaan ku raadayay Soomaaliland baa ku xigtay dalka labaad ahayd ka saddexaadna Sweden bay noqotay Yurub ahaan laakiin Yurub ahaan waa dalka labaad weeyaan marka taana ku bushaareysta wali hawsha waad ka qayb qaadataan laakiin si xoojisaan uma doonana insha Allah kulli waxa weeyaan waxa ku dheeraanay badan baa maxaan ku raadayay kulli waqtigii naga tagay waxyaabahan qabanno waxa xogaa doonay idinka sheekiyo kaas waxa weeyaan kitchen aanu ka dhisnay dhakhtarka Hargeysa waa sababtoo markii hore wuxuu ahaa waxa wax loogu sameyn jiray geed hoos wax loogu sameyn jiray oo maxaan ku raadayay shimbirihi ay dul fuushan yihiin oo sidoo xaladooda ku dhacso markaan aragnay marka dhibaatada meesha ka taagan ayaanu maxaan ku raadayay arrintaasi sameynay waxaan nagala qayb qaatay urur la yiraahdo Hayat Women's Trust oo ka jira isaguna Cardiff taasina waxa weeyaan dawadii aan u iibinay sanadka dhakhtarka Boorame iyo Burco waxaan kaloo sameynaa
in aanu rabadaanada fitrida ka ururino dadka waxaan sameynay markaa aanu aad u bilownay sanadkan inaanu waxaan ku rahday dad ogeysiino wixii doonay inay fitri diraan inay anaga toos noogu soo diraan waa sababtoo qofka halkan jooga kulli dalka bayna u dirnaa marka si dadkan waxa weeyaan dad jilicsan baa haysta dadkan badankooda dadku ka xanuunsanayaan waxa u daryeeli waxa weeyaan because waxa ma haystaan maxaa waxay ku daryeeli lahaayeen waa dhaqaalahooda hooseeya qof mar qof ka xanuunsado isagaaba la digaya waayo halkuu shaqo tagi lahaa u soo shaqayn lahaa kusoo qaban lahaa isagu daryeelaya marka dadka runtii ilaaliya aad u jilicsan yihiin taa darteed baanu nidhi inaanu fitridii marka la ururiyo aanu u dirno marka sanadkan waxaan noo ururinay lacag gaadhaysa ilaa 300,000 oo gini oo ilaa 450 $4,500 oo noqonaysa dabeetana waxaan ugu iibinay inaanu raashin ugu iibinay oo u qaybinay 3 gobol maxaan ku rahday Boorame iyo maxaan ku rahday Hargeysa aan u qaybinay laakiin haddii lacagta inta ka sii badato insha Allah waxaan doonaynaa inaan gobolada dhan gaarsiino haddii Ilaahay dhaahdo kan waa dhismihii waxa weeyaan qaybtan aan dhisnay waa dhisme jiray oo maxaan ku rahday ahaa qayb kamid ah acute kama dadku markay maskax xanuun ku dhaco lagu hayn jiray taas way baabaaday oo waxa weeyaan sida arkasaan dibadda waa asaas uu ka yahay oo ka daloola gudahana roofkii wuu soo dhacay oo kaas maxaa daloola gudaha kale hada si aragtaan waxa weeyaan gidaaradii wax walba way dumeen dadka markaan aragnay sidoo yahay waana qofku marka uu xanuunsanayo ee marka uu dagaalamayo meesha lagu yarahayn lahaa ee dawladda lagu siin lahaa taas maadaama ayna jirin ma qabtaan qofku marka yar la dawladda la siin karo un baa meesha yimaada dabeetana waxaanu garanay in meeshan wax laga qabto marka waxaan isla garanay in marka hore nasli bangaas in malaha dib loo yara habeeyo uu u baahan yahay laakiin markaan uu keenay engineeradu waxay yiraahdeen in la dumiyo mooyaane si kale ma laha dabeetana waxaan goosanay marka in la dumiyo dabeetana insha Allah way idinka arkaya waxa gashay cagaftii wata dumisay gebigiisa dhulka dhigtay kadib dabeetana markaan waxoogaa haynay ku bilownay qayladaan baanu sameynay waxaanu TV-gaan nimid home cable waanu maxaan uma hadlaqanaa runtii way nagala qayb qaateen arrintaasi dabeetana waxa noqotay runtii arrinta idinku aad uga qayb qaateen ay suuleen ahaan tihiin annaguna maxaan raday dalalka kalena ay ka qayb qaateen waana runtii arrintaas way ku guuleysanay dhakhtarku way noo leeyahay oo ka isagoo seeski la bilaabay halka maraya insha Allah waa sidaas uu ka doona hadii la yiraahdo laakiin isagoo dhameystiran oo rin wimka uu dhameystiran yahay waa dhammaystirmay laakiin waxa weeyaan fiidihiisa baan soo gaadhin waa soo arkay dhakhaatiirtu Dr. Maxamed uu soo arkay marka insha Allah kale isaga laftiisu wuu sheegi doonaa laakiin waxa marka ka dhiman waxa weeyaan waa qalabkii baa ka dhiman oo sareelihii loo dhigi lahaa qalabkii kale la sameyn lahaa taana waxa weeyaan sida loo socotaan de suulan bay yaalaan oo la yiraahdo halkan yaalaan waana noo diyaar waxa naga dhiman wixii lagu rari lahaa taana waxa weeyaan maadaama idinku ay qayb marka horeba ka haydeen waxaan jecel lahay inay idinku israacsataan insha Allah hadii la yiraahdo wada laabtaas insha Allah inoo dirtaan hadii la yiraahdo taana insha Allah idinka hawsh uga hawlgalaysaan insha Allah in maxaan ka wada hadli doonaa insha Allah intaas ku soo gabagabeynaa insha Allah waa mahadsantihiin wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan ku soo dhaweynayaa Eid Ali Salaam oo isaguna idinka warrama bal hawshu insha Allah intaan wadnay wuxuu ka yimid wuxuu ka soo noqday dalkii oo uu u tagay wacyigelinta arrintaas lafteeda dabeetana waxyaabaha ay ka soo qabteen insha Allah ayuu sheegi doonaa insha Allah bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in aad baad mahadsantihiin wax walba ilaahay baa de maartay suurtooba galiya horta fiiriyegan aad maanta daawateen waxa ay inaad abril daawataan markii aynu halkan ku qabanay xafladii balaarneyd ee aad ka balaarneyd ee inoo qabteen magaranaysa Swedish Somaliland Association iyo Somaliland Society Europe in fact may dhicin oo qadarka Ilaahay iska leh waayo waxay naga xumaaday technically marka de waqtigii Ilaahay qadaray inay dhacdo bay dhacdo inagan maanta daawadanay waana Ilaahay xamdigii waliba marka keligay baan hay maanta ayadoo ila socdaan ragii aasaasay hawshan aanu ma ahayn dadkii aasaasay waxa la idin sheegay in la bilaabay 2011 anigu waxaan ku soo biiray oo waliba biiristaydu ay tahay biirist gaaban oo wixii aan la qaban karo aan la qabto sanadkii hore Soomaaliya 2015 marka
xaqiiqdii markii aan arkay dhowr iyo tobanka ma garanaysaa reer Somaliland ee reer Cardiff hawsha wanaagsan ay qabanayaan ay wadaan oo dhowr sanadood wadeen oo xaqiiqdii markay nagu yar inay dadku sidaaba u wada shaqeeyaan mala SNMT halgankii bay noogu dambeysay ayaan aad iyo aad ugu farxay dabeetana waxay noqotay waa wixii aad ku kordhin karayso bal ku kordhi marka xaqiiqdii anigu qaybtan ku kordhiyay waxay noqotay sida ay idin sheegeen organization ku inuu badnaa wax daynaga dhexdeena uun ka socda oo amba lacag hal la guro amba wacyigelin ha noqoto arrintii waxay noqotay waa arrintii aynu kor u qaadno walada aynu u sheegno wadankan aynu deganay dadkan cadaanka institutionska bal aynu arrintii kor u qaadno marka waanu sameynay xaqiiqdii conference-kii ugu horreeyay waxaanu ka sameynay January 2016 Cardiff baanu ka sameynay waa la iskugu wada yimid waxaanu ku casuumnay waa dhakhtarada psychiatriska nurseska organizationska kale ka shaqeeya maaragtay maanka Yacquub Dr. Yacquub aad baad u mahadsantay maanka maaragtay hay'adaha ka shaqeeyo dhan baan iskugu yeedhnay wixii waxaan ka dhaadhicinay dhibaatada ee haysata dadkeenii marka dhakhtaradani waxay haayeen qaar dadkeena Somaliland jooga jooga in Wales amba UK ba daweeya ayaga aad bay ugu farxeen si ay u ogaadaan bal hada background-ka dadkan ilaa dadkani dad u yimid un bay haayeen bal marka inay background-kana eegaan oo marka inagana bal culture-keeni wixii Somaliland ka socda xitaa dadkan cilaajka la geeyay dib loo celiyo ku ka hadlayay xitaa dawooyinka 3 bilood si qadimaan amba 4 bilood qofkii haddana si arrintiisi bay aad u soo xumaatay ayaa ku soo noqda dabeetana waxay noqdeen inay fahmaan bal waxa xagga ka socda annagu tii kumaanu dayn waxaanu sameynay inaanu ayagii train gareyno xagga training ma nihin annagu dhakhtarro laakiin xaggan culture-ka iyo diinta iyo background-keena workshop baanu sameynay ayagii oonu train gareynay si ay u fahmaan dadkeena dhaqankooga caadadooda culture-kooga cross cultures wax la yiraahdo amba cultural diversity anu macallin baan ahay xitaa macallimiinta tababarkooga aan u dhigaa ma ogtay waxaan la yiraahdaa cultural diversity way haddaad audience-kaagan haddaanad fahmin amba dhakhtar ahaw amba engineer ahaw amba macallin ahaw waxba uma qaban kartid you have to why not understand garaysaa dadkan background-kooga marka taa annaga wax namaysiinayna daanagina inaan wax barno ayay ahayd tii waxay noo suurtooba gelisay inaanu la xiriirno hay'adihii Wales deganaa oo xaggii project-yadii marka arrintii waxay noqotay walo la yiraahdo hub Cameroon Africa waa hay'ad caawisa Africa amba tacliinta haato amba haato caafimaadka inaanu project yar gelino project-kii way noo ogolaadeen haddaba muxuu project-kii noqday project-kii wuxuu noqday inaanu wacyigelin samayno laba qaybood baan u qaybinay mid waxa weeyaan inaanu xitaa dhakhtarada oo maanta dhakhtaradeenna oo wadankii jooga iyo nurseska aad arkayseen oo ka shaqeynaya inaanu ayaga qudhidoodii aanu isbarno inay ayagii wada hadlaan in ay noqoto in aqoontooda kor loo qaado qaybta kalena waxay noqotay dadka xanuunsan ay hayaan amba ehelkooga ahaadaan amba dadka oo muxsiniinaba ahaadaan in qudhidoodii wacyigelin loo sameeyo sidaa darteed in bulshadiina wacyigelin loo sameeyo qolada cilaajka qudhidooda in laga dhaadhiciyo sidii ay loo shaqeyn lahaayeen ma garanaysaa dhakhtarada ay loo shaqeyn lahaayeen waxaanu ka sameynay 3 gobol Boorama 2 cisho oo intensive from 8 o'clock ilaa 6 galabnimo ayaan hawshaa wadnay 2 cisho يعني وحوها وحادي آد لوج فرحوها وحيالها نتابتي وحكمدا قبل ده أنت كعدي دي مركا ما نكوح عن سنة مدة سديدي 8 سنة إلا 14 سنة دودا وبوكسوتي وأنت كعدي هذا الشيء وقروح ذي يصير تي أديارس وظروفتي أي كسون ولد كشكيسي وأمها هالنقيسة dadkii caawinayay dhakhtarkii halka ku arkaysay videoga
دكتور عبد الرحمن ونندل يراه هدنا قيسا أو فاضمو أو نيرسا هدنا قيسا أو يسكدا تاسو إلا يعقوب أو دكتور يعقوب أو كان الوفريا هدنا قيسا وهبليك شقيني هدنا قيسا يعني واحد هيد قصة آد وعجيبة ماشي بورمي واحد نقطي ميل أنا آد وفرحنا خوسك السعود حقيقي نك خبير كا دكتور كا هو شو أقول قلينا ومستر يعقوب صعب كوت مني إلى هاي كتسايسي تاو حنولي وحوي أنو كارديف يمكن صدق حديدا لنا يالكم فردي صدق حديدا بقى يلش كلام مسي واشن كلام وانا لا تابري تابر كاسمعون نقضي وحلا إلى mental health first aid أنا أقول دكتور مني لكن first aid كواد جرانس أنا دوا وحلا يسكت تابر كرو مركا وحوي طبقات دايرة وجوه الرئيسة وإنا نفهم نقف كن إنا دبات عايزته يا أنو نورمال هين إنا نفهمه لا بعشان التبري سي انتنسيفا وحيالا بدون أن نقرن إنه عادي موديني أي نفهمني مركا ما كوانو يرفهمنا قفكو بل إن دباته لكن ده حقيقي واحد بدون أنه قبل كرنا متجرتي دوانا نونا وبل يرد شنو أنبا أنو دتك كداري إنه دني كان إن لير مقرنسا إن أنو سيدي هراهين لكن أي نقطة برايمري هيلث إن أنو كوري شنو أنبا أنو تلمان إنه دكتور ذي تاسي أنا قاعد بينو أنفع ذي حقيقي وبركي أنو تغني ودن كينا برنامج كانوا ودني كاسوها إن أنو وعي قلتها أنو قلنا أنو كل ذي دوح كسوا عرقني إن أنو قلنا لكن وحي روح يسكو فوق صدي بورما وهو بروجكت كيوم ماشي باللي هرجلي أو براكتيكالا أي روتنا أفرتن هبلود أي كشقية أفرتن كهبلود قولي كست أفر ميلود بيوكلا قيبين بورما مجال إن بورما تمام ميل بقابلسين أفرتها هبلود قولي كست وما أنت بورما كيالا وحكي سويه ويوبي هو وحاب وياه وهبلا يعني موتيفيتد كدبت هاي تبتنا maxay ogaanayaan caayiladaas waxay ku nooshay hadii marka ay dhacdo qof xanuunsanaya inuu ku jiro gacantay ku qabanayaan faadmo tii ka hadlaysay sheegaysay markii hore waa la yaabsanaa laakiin imika waa la bartay marka halka boor masaasaan labada cisho uga sameynay hargeysay noqotay hargeysa waa meel caasimad oo sidii xamar loo wada tagi jiray magaranaysa dabeetana waxa ka halaabaya focus ka halaabaya moogtay marka waxay noqotay inaanu kaxayno dhakhtarka boorame oo noo lecture adigu oo akhriyo bal good practice wixii aad samayseen boorame una raacay waanu ka sameeyay xaqiiqdii hargeysana haddaan eega meelaha cajiibka ahaa waxay ahayd dadka u xanuunsanaya maanka dadkooga haya حقنا دكتور ذي بهيد هرجيسنا دتكن دتكو وحنوسنا يانا هيا أيام وحفر بدن كبرني حقيقي يعني ظروفها يكونوا لهين سيدي وحقوق بنيان سيدي يهين وحصوم مريا هلكا وحويا حقيقة دبتها وتدتك وجب بدن ما أنت ما أنك وحنوسنا يلا هيا فرتوا دتك فقيرين تاوي وبفرتيا أيوة بدن halka aad ku arkaysay islaantu sheegaysa afar caruur ka xanuunsanaysa burcaan tagnay meel walba oo tagnay waxa weeyaan dadka ugu badan waa iyaga way xaqiiqdiya marka hargeysana sidaas leeg waa la idin sheegay in marka dhakhtarkii uu dhamaaday waan tagnay ilaahay ma hadii way waxa ku baxay $7,000 ya $8,000 ayaa maanta ku baxay مشروع دكتورك إيه اللي قسميه؟ رجع ما أنت كشغينه ورجع هالكرديف أنا بماها ورجع هالكم فرديوي هذا ما يفهم مركا حقيقي ما أنت دوح الله يدين كفرديه وحوي وقرحستيسي بيلدينج كوي نو ديسين لكن ما أنت قلب كيسي دواي نو يلا وينو هينا لكن سيداو هذا الشيء وحوي أنو ده هوشة سيدك هيدين تلاي قلب كواد تجويه تانو يمكن مرتضى هنا ورتتاوي وحنا بصور نقول يا برعو
burco waanu tagnay dhakhtarka maandheeye ilaahay ka jisaaysiiyo waxa dhisay dadka dibadda dhisay waa dhakhtar baahida ugu fara badanna qaba waayo ilaa laascaanood ilaa ceerigaabo ilaa meel walba oo looga yimaadaa marka xaqiiqdii qudhidoodu hawl badan oo wanaagsan ayay wadaan laakiin waxa weeye burco waxaan ku aragnay in cilaajku ku fara badan yihiin oo meelaha lagu hayo dadku aan weli wacyi gelin badan aan laga samayn iminka boorame dhakhtarada iyo qolada cilaajku way wada shaqeeyaan oo way wada socdaan marka hore ha lagu eego xaggii diinkii quraankii waa la eegaa marka haddii ay noqoto wixiina clinical tahay dhakhtarkii ku wareejiyaan boorame way gaadhay inay si wanaagsan u wada shaqeeyaan hargeysa ayadana wax badan baa ka dhiman burcana wax aada u sii badan ayaa ka dhiman marka burcana xaqiiqdii waxa yar dhacday dhakhtarkii boorame namuu raacin annagii baa ka hadlaynay boorame oo lahayn si fiican bay u shaqeeyaan wixii baanu sharaxnay waana lagu yar xanaaqay waan kaftamayaa marka hablay neeska mid ka mid ah baati waa lagu badiseen boorame naga daayay dee waa marka xaqiiqdii horta sessionska aan soo samaynay waxay ahayd wax ay naga rabaan aan ku celinayno dowladda Wales oo hay'adda lacagta bixisay ayaa reportkii naga sugaysa si fiican baan u soo dhamaynay ilaa 120 qof baa ka qayb galay oo magaranaysa amba nurses amba dhakhtar amba magaranaysa kuwa carers ka imika reportkii baan qoraynaa waxa weeye horta marka organizationkan qaybta hore la idin sheeg qaybta maanta aan wadno ee doonayno in organization ka gaaro waxa weeye wax la yiraahdo international organization waa inay noqoto wax sustainability leh wax waara oo gacanta ay ku hayaan dadka reer Soomaaliland qaybta ugu horeysa waxa weeye waa dhakhtarada weeye jazaakumullahu khayr horta meesha ugu mudani waa Sweden weeye maanta ragga in la fadhiya ee dhakhtarada ah ee psychiatrist-ka yani ilaahay ka jisaaysiyo waa niman hawl badan qabtay waxaan ururinaynaa wax alla wixii dhakhtara ee psychiatrist waan ururinaynaa database-koogii waan wada haynaa ahaadaan Canada Holland UK Sweden Norway dhammaantoodba inay ayagu isbartaan inay nurseska sidaas leeg isku bartaan waayo human resource kuma wax qabta dadku waa aqoon shay u leeyahay dawaynu sheegii sidii uga faa'iideyn lahaa u sameeyo marka waxaan sameeynaa in aan tusno xitaa caalamka dad wax qabsan karayeen macnaheedu imika bisha 15 December waxaan ku qabanaynaa Cardiff wax la yiraahdo grand event macni maxaan uga jeedaa ma aha event yoro la isku yimaado city hall kaan ku qabanaynaa exhibition baan sameeynaa past and present of Somalia way cudurkan aynu ka hadlayno wuxuu ka yimid dagaalkii Soomaaliya waa inaanu tusno wixii ka dhacay sidii dalka dib loogu dhistay wixii ay nagu reebtay traumadii iyo xanuunkii uu nagu reebay aynu tusno si loo fahmo taasoo u yeedhayno who is who in UK in UK amba Wales bade haadan siyaasiyiin haadan dhakhtaraadan academicians haadan city hall kan ku qabanayna exhibition kii baan sameeynaa amba video waato amba pictorial waato iyo paneliska waxaan doonaa inay ka soo qayb galaan maanta dhakhtarada Soomaaliland ee psychiatrist waxaan ka dalbanaynaa wax kastaba sameeya weekend maaha waa weekday waad hor fadhidaan inaad noo timaadaan in caalamku arko dad wax garanaya inaynu nahay ayaanu doonaa inaan proof karayno way marka lagu arkay inaad wax garanayso un baa lagu ixtiraami karaa waxa dhacday imika nin jaamacadda ka dhiga Bristol doctor ma aha in fact laakiin waxa weeye waa social scientist waa researcher maanta Hargeysa jooga assessment-ka wuxuu ku soo sameynaya waxa waa mental health in Somaliland ayuu report ka soo qoraya sababtu u yimid waa maxay already organization-kii wuxuu noqday organization maanta caalamku garanayo moogto oo la garanayo moogto marka waxa weeyaan wuxuu la soo xidhiidhay organization-kii wadankii baan tagayaa in ma garanaysa dabeetana waxaan ku xidhnay xiriirkeenu xagga ku lahayn office baynu ku leenahay xagga
taa yaanan iloolin nimanka meeshaa ka shaqeeya waa dhalinyaro xaqiiqdii volunteersa maanta waa Hargeysa waxaan ka hadlayaa xafiiska Hargeysa waxa weeye waa wada volunteers inamada ay sidii u dadaalayaan ay u shaqeynayaan waana wada graduates waana shaqo la yihiin midi taxi buu ku shaqeystaa midi laakiin hawsha markii aan qabanaynay dadka laf dhabarta ahaa ee nala shaqeynayay ayaga ahay waana volunteers baan idin moogtay marka xaqiiqdii anigoon doonayn inaan aad ugu sii dheeraado oo ka hadalnay intii ugu badnayd ba aynu ka hadalnay waxa weeyaan arrinka aan doonayay waa mustaqbalka weeye maxaynu doonaynaa inaanu qabanno sidaan ii sheegay horta waxa weeye organization international inuu noqdo oo la tartama international organizationska maxaa u diidaya wax in qofna ma sheegi karaa waxa inoo diidi karaa inaynu international organization noqono European baynu nahay baasaboorradii baynu haysanaa cilmigii baynu haysanaa dhakhtaradii baynu haysanaa human resource baynu haysanaa anuu la jarar baan ka Cardiff University 20 sanadood wuxuu baan dhigayo marka haddii ay noqoto teamwork amba human resource ama human resource expert dhakhtarada aniga garanaya sida la iskugu keenayo ee laga shaqaysiinayo ee la wadayo moogto halkan waxay noo jooga raga dedicated ka ya qof walba uu shaqaystaa nin maxamuud la yiraahdo ka yar horeeyay Faysal maxamuud la yiraahdo ayaan idinka sheekeynaya ninkaas waa full time uu shaqaystaa waa ninka daasada aqalada iyo dukaamada iyo meel walba dhiga bahal buu jiidanayaa oo ku guraya wuxuu kala bartay imika daasada aqalka la dhigay dharaartii buuxsamayso sidii geela ma garanaysaan dala kala garanayay ta gurafka buuxinaysa iyo ta kale ya ayuu kala garanaya markiiba uu tagayaa oo ka soo qaadaya taan wali buuxinayn ya daasada buuxsamayna de muddo sugaya waqtigu ma doonayo inuu ka khasaaro marka sida aynu sheegnay horta international organization inaynu ka dhigno wixii human resource-na dawaatan aqoonteedii waynu leenahay wax inaga dhiman ma jiro haddii aynan dhicin in dadka maanta dhimarka ka xanuunsanaya aan wadanka wax loo qaban oo the highest incidence oo guri walba ay fadhiyaan caalamka markay noo qiyaasay waa dad 90% aqladoodu la dumiyay wada trauma in haysta qaab baa la cunaya shaqo la'aan baa jirta waa dhibaatada meesha taala iyo reasonsku aad bay u farbaday inagu intii aan isleenay ka qaban karo oo sidaa uu aadan u sharxay strategy-ga iyo vision-ka inaan ku shaqeyno weey waxa weeye gacmaha la isqabsado baana wax lagu qaban karaa xagga dawladda hadday noqoto horta ilaahay xamdigii way nala shaqeeyeen sidaa markayseen assistant ministerku waxay nala shaqeeyay director-ka magaranaysa minister of health Salaban waxa weeye daraarta ay ahayd mental health halkan idin kamaan tusin laakiin conference baan ku qabanay dhakhtarka aanu arrintaa ka hadlaynay marka horta waxa weeyaan dawladda wali strategically act-kii waa uu qoran yahay laakiin wali lama baas garayn mental health tiina maanta de waxay nala fadhiyeen ministerkii isagana de wixii uu warar naga qaadi karo uu naga qaadi doonaa laakiin inaynu gaadhsiino levelka in la baas gareeyo weeyaan 15 December 10 December waa Human Rights Day adduunka oo dhan United Nations waa Human Rights Day sabab kasta laakiin waa xuquuqda bini'aadmiga Yacquub wuxuu ka hadlayay xuquuqda ay leeyihiin anugu strategies baa waxaan ugu talagalay 15 December ayaa naga noqotay laakiin waa 10 December way meeshaan doonaynay ba 15 December available noqotay City Hall laakiin way arki doontaan theme-ka aan ku shaqeynaa waa the human rights qofka birtu ku xidhantay in xuquuqdiisa helo ayaan ugu talagalay aad iyo aad baan mahadsantihiin waa intaas aan ugu soo waxaan maanaynaa inaan ku wareejin doono Faysal wixii practical iyo sida hawshu u socoto idinka dhaadhicin doono idin sheegi doona بسم الله الرحمن الرحيم
وسيرك لما أنك سوق قبل يا شرق يدوم أربعة وحنا السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كدي بالله بمحله إلى أسبوع كان هالكن وحنا ما هنقى يا دمانتين سيدا ولا سنة قرحة بدر وسوق قبل كشان runtii markii hore waan yar warwarna waxaan isnina malaha cadabadeena ma mayso oo saddexdii baan nabi haddana xagga daba ka soo camirteen aad baa mahadsantihiin inta aanan u gelin waxyaabaha barnaamijkeena qabanay waxaan doonayaa horta Iid Cali Salaan runtii inaan professorka aad ugu mahadnaqo oo runtii gaarsiiyay meelaha u sareysa oo runtii annagu waxaan isku haynuun Somaliland baan runtii wax ka ururin jirnay laakiin isagu ka caalamka uu baray marka shaqo aad muhiim ah oo qabtay si wanaagsan لا أنت لو رحت محمد عن ميلا ما عن قارنين مركاي وحمودين يعني الله ما هذا نقاب واحد كلام دون يعني غير هذا واحد كده حفيظ عن كفر نهر جيساني هذا بعتقني سنة كيهرة أبارتنا وقت جيسي بعتقني رنتي أنا واحد مرة أو تقني إن التجارة الله ساق لنا أنه ده كذا أنه واحد ندور إنه واحد ندور إنه قبل قيب تذاك قاطان نصيب ضر أبارتي بعد كوب بيجنا marka dawladdu si wanaagsan bay runtii loola shaqeysay wasiirka caafimaadku meel kasta oo u baahan oo tagno dawladdu runtii si hagar la'aan ah ayay noola shaqeysay dhakhtarka Hargeysa la iskama galo oo sawirada maanta halka yara la iskama soo duubto oo waxa jira dad badan inta sawirada duubtaan iska taga waxa jira waxyaabo badan oo dayax fara badan oo arkayso oo loo baahnaa inaad media-da gelisana way jirtaa marka waxa loo baahan qof wadankiina u turaya ودكين دولة runtii waxba inaga ma hakranayso inta karaankeeda way dadaashaa madaxweynadu way ka qayb qaadatay oo runtii waan u tagnay qayb bay ka qaadatay baarlamaanka qudhoodu cid waliba way si dadban bay uga qayb qaadataa kii aan si toosan uga qayb qaadanin marka reer Somaliland meel wali joogaan runtii way ka qayb qaataan sidaa uu idin sheegay launch baan ka soo sameynaa Mansuur baan ku soo furnay xafiiskii ka soo furnay Hargeysa inama waxa ka shaqeeya jaamacada ka wada baxay inanka gudoomiyaha hina waa inaan isna xaashib la yiraahdo marka waxa filayaa kulli wan hadan waqti la wada daawan doontaan inankaas action uu shaqeeyo runtii waqtigiisa ayuu galiyaa markuu sida halkan oo kale uu shaqeeyo shanta cisho uu shaqeeyaa oo wuxuu la shaqeeyaa hay'ad cadaan oo la shaqeeyaa marka markuu shaqada ka soo baxo hawshiisa ayuu waqtigiisa u sameeyaa halka caruurtiisa uga tagi lahaa inamada jaamacadaha ka baxaanad halkii ay adduunka heli lahaayeen bilaash ku shaqeeyaa marka imaga waxaan doonayaa inaan iyo gudboon hadaba saxgeena dhaqaalaha ka keenna sida dhaqaalaha ururna runtii sida aan idin sheegay waxaan ku bilownay inaan tagaasida shan gari ka qaadno oo nu raanka istaagno oo maanta taasoo cid meesha u maqan ma jirtay oo dawladdeena kuma filaan karto wax kasta ma buuxin kartay inagu qaybteennii aynu ka qaadan lahayd sideen uga qayb qaadana alxamdulillah maanta waxaan marnay inaan dhakhtar 100 kuna dhisno inuu dawooyin konta kuna iibino taasna waxa ka timi jeebkiina waliba waxaan aad ugu sii mahadnaqayaa dumarka waxay si hagar la'aan marka TV-ga soo hor fadhiisano si hagar la'aan ayay uga soo qayb qaataan oo lacagta biilkooda iyo caruurtooda ay uga soo bixiyaan rag runtii way halka way ku liitaan waayo inuu garanaysaa iday wixii jiray inuu sheegnay weeye marka si wanaas si dadban baa uga wada qayb qaadataa runtii reis wiilana hadda number 2 ayuu noqotay markaan lacagtii dhakhtarkan maanta la dhisayo oo 100,000 runtii ma aha uun dhismaha shariisteeda ku baxay laakiin kharashaadka loo fara badan baa jira haddaba waxa kaloo jira niman wadaada oo soo arkay baahida dhakhtarka taala horta waxaan idinka codsanayaa qof kasta oo idinkeeda kamid ah wadankii taga markuu meesha tago ha galo ha soo arko waxaad arkaysaa baahida meesha taala baahidaas oo runtii tan ka liidata oo ka sii daran aad maanta halkan ku aragteen marka waxa weeye inaynu kacno oo inuu gurmano waa inaynu isku xisaabtanaa inagu haddii qof kasta oo reer Somaliland oo qurba joogi uu $5 bishii bixiyo dhakhtarada Somaliland wax badan ka bedelayna waxaanu hadaba dhaqaalaha ururnaa soo aan idin soo ururiyo waxaanu sameynaa caagada yar oo gambadii cidii garanaysa gambadii caseedo kala lagu ridaa dukaamada ajaanibka oo dhan iyo kuwa Soomaalida UK oo dhan waan dhignay meel walba waxaan dhignay caagadaha dadka gambooyinkaas lagu ururiyaa dadka inta yada ayaa bishii mar baxna magaalo walbana waxaanu ka sameynay group nagala shaqeeya haddana annaguna waan la ururnaa waxaanu ku wada shaqeynaa tabarro mid lacag naga qaata ma jiro tan halkan ku dhoofayno iyo tan Somaliland ku tageynaba
waayo waxaanu arkaynaa dee baahida taalla adduunkana cid unbaa wax u qabataa haddii aynu daawano waxba kuwa halkaa maanta joogaa dee may dooranin cudurka iyagu ninna intu cudur doorto soo ma iibsan innagu maynaan dooran inaynu carruurteena iskuul tagto iyaguna ay bilaa iskuul noqdaan ilaahay baa inagu eegaya baahidan maanta taalla waddankeena ka taalla abaarahan waxaan nagu soo noqnoqonayaana waynaan isu naxayn waxaad arkaysaa waan ku garaadsaday iyadoo ilmaha ninka waala la shiido oon waalidku ka qaban sidii baana weli tahay marka runtii waxa weeye lacagta aan ururino waxaanu ka ururinaa caagadahasaanu ka ururinaa waxaanu dhignay aqal kasta oo reer somalilandna waanu dhignay oo sidaa uu idiin sheegayay dee hooyada wanaagsan ee wax dareemaysa markaaba waa la gartaa waxba ninku waxba ma talaa raggu waxba reer somaliland runtii way ku liitaa qurbaa laakiin hooyada meeshanu kala dhaqaaqi karana waa hooyooyinkii iyo dumarkeenna weeye dukaamadaanu dhignaa waxaanu kaloonu samaynaa masaajidada ramadaanta ayaanu iyadana farrays ka samaynaa oon lacag ka ururinaa waxaanu samaynaa cuntooyin baanu karinaa deetana dhallinyartaanu isugu yeernaa kubadaanu ciyaarsiinaa deetana raashinkaa dumarku soo kariyeen ayaanu ka iibinaa gabadh waliba jeebkeeda kaga soo bixisay lacagtaa deetana teeduba iyaduna intay haddana isdul taagtadu iibisaa taana lacagta xagaana waanu ka keennaa weli wax nooga yimi hay-ad caddaana oo intaa ay soo saaree dee ahayd iyaduna wacyigelinta oon runtii dee wax xagga wacyigelinta mooyaane laakiin wax qabad kale aanu qabanay aan weli aan shaqo ku lahayn mooyaane wax meel kale nooga yimi ma jirto ilaa sacuudi arabiya meel kasta oo reer somaliland la joogana telefoonka waxaanu samaynaa markaanu mashruuc samaynayno waxaanu tv-gaanu fadhiisanaa home cable ilaahay khayr ha siiyo way nala shaqeeyaan runtii iyagaanu halkaasanu soo fadhiisanaa london waxaanu u jirnaa 3 saacadood baanu sii soconnaa deetana habeenkii 2 habeennimo ama 4 habeennimo aanu dib uga soo baxnaa annagoo aroortii shaqo tagayna oo dee waxaan danaa shaqaynin biilkii baa meesha yaalla deetana halkaasaanu ka ururinaa lacagta mashruuca saasaanu ku fulinaa waxa haddaba aynu sideebaynu mashaariicdan sidaynu ugu talagalno aynu doonaynaa inaynu wax ugu qabanno sidaa idiin sheegay aadan qorshaheenu hargeysu ahaa marka hore dhakhtarka hargeysa qaybta dumarku raggu way dursanay xamaamo ma lahayn dumarkuna waa sidii weli dumarku meel xamaamo ay ku xaajadooda ku dhamaystaan ilaa hadda ma leh innagaanayna sugaysaa burci meesha laascaanood la yidhaahaa waxba ma leh geed bay ku hoos xidhan yihin ceerigaaba waa kadaalik boorama iyo ree burco community-ga kasoo jeeda burca iyo booramaa dadaalay nasiib daro hargeysa waxay noqotay meel la wada leeyahay markaa dee iyadu waxaa iskaga dhacday cidla iskaga dhacday laakiin annaga reer somaliland waa isku kaaymi kolba halkii baahidu taallo ayuun baanu ugu horreysiinaynaa deetana annagu dhakhtarkii hargeysa oo dee dunsan las dhisa ayuu si aadan sheegay qaylada dhaantaasi noo tibi halkaas booram iyo burcaanu ugu horreysiinay iminkana qorshaha iyaga waxa weeye inaanu laascaanood ka dhisno wasiirku dhulkii wuuna siiyey maalintii dhawatay kaadhig bristan yimaadeen dhulkii aniga aa tagay dhulkii wuuna siiyey waxaa laydinka baahan yahay lacagta waanu soo qaybinaynaa inaad qaybtiina soo bixisaan inta ku baxaysaa inaad qaybtiina soo bixisaan baanu idinka baahannahay waana nagu qaybinaynaa reer UK oo dhan reer somaliland reer hargeysa oo inaga dakhli liitaan number 2 noqday waxaa nala soo hadla telefoonka noo soo dira qaar baan nala soo nusaacayga bixinaynaa ilaaha $5 $2 anna mid walba wax bay noo taraysaa dee marka adduunku inaynu isku filaano inaynu ka maarano dad bixiyaal wax la yidhaaho waayo maanta dee waynu in walba dollar uu ka go'aa nin walba $5 way ka godaa marka haddaba waxaad joogtaan dhulkii ugu aqoonta badnaa baad joogtaan waxaa nagaga nasiib wadaagsan tiridu dhakhtaradii baa haysataan maasha Allah annagu ma haysano kaadhif marka la yidhaaho niman way joogaan niman dhakhtarra oo dee dhakhtarka ka shaqeeya laakiin niman sidan u khibrad badan oo halkan waddankeena ku soo kora weliba qaybta ku takhasusay xanuunkan maanka ama aha marka nasiibkaasaa haysataan annaguna iid baan idin dheernahay wala maranaya marka waxaanu idinka doonaynaa 2 shay baan caawa idinka fadhinaa oo biyo kama dhibcaana waxaanu idinka rabnaa ciddii nagala shaqayn lahayd inaan ka tagin caawa maasha Allah oo halkaa liis baanu samaynaynaa halkaa noogu qortaan magacyadiina hadhow marso liiskaasaanu idinka rabnaa waxaanu idinka rabnaa inaad samaysataan madax iyo mijo oo idaan 3 yaacin baanu idinka rabnaa aniga imanka ururka ninka ka chairmankii waa walaalkayo iga yar haddana isagaan uga dambeeya oo isaga aasaasay isaga waxaan watay deetana marka cajiradaha daawada meel la shaqeeyay
soo ma adgaran marka waxa weeye waxa la idinka baahan yahay haddaydaan is-aaminiyoodaan wada shaqaynin waxba halkaynu doonayna ma gaadhayno waxaynu rabnaa future-kan waxa weeye inaynu xaafadaha inaynu danyarta dadka xanuunsanaya inaynu wax tarno inaynu outreach halkaa ku daweyno dadkaynu rabnaa marka taa waanu idinka rabnaa caawa waxaanu idinka rabnaa caawa annagu oo dagaalo qaybtii dhakhtarkii 5,800 si aan ku keenaba keenno dhisnay waa ku mahadsantihiin inaad keenteen kuraasi inaad sariirihii keenteen taa lafteedana inaad qaybteeda ka qaadataan oo dhakhtar sariirihii bishana waxa la rabaa uu dhisay dhakhtarkii uu dhammaystiray inaad sariirihii containerkii intii lagu dirayay qiimaheedu waa garanaysaa ma filayaa inaad containerkaana qaybtii inaad bixisaan baanu ka doonaynaa tanu aad u sii jecel lahay eenu aad u sii danaynaa waxa weeye oo ilaa halkaa u nabi lacag la helayo waan ogni lacagtu waa la helaa oo si walba loo helaa lacagta laakiin waxaanu rabnaa ajiladan markaynu daawano inaynu qiiroonno oo halkaa ka kacna ma doonayno waxaynu rabnaa kuwa halkaa sida aad arkaysaan ay yihiin kuwii bedelayaan inaynu noqono marka waxaan rabnaa rag iyo dumar volunteers oo shaqadan qaybteeda isweena ka qabta oo Scandinavia ka mas'uul looga noqdo Norway waanu tagi doonaa insha Allah Denmarkna waanu tagi doonaa marka waxaanu idinka doonaynaa taasaynu idinka doonaynaa waxaan idinka iloobay waxaa jira nin Maxamuud Ahir la yiraahdo waxaan warsadeeba inuu waddankeennii ilaa kulma ma ono karno oo dawladda ay boqolkeen tijaarteena boqolkeene sidee baynu dadkeenu u barnaa inay lacagta la u bixiyaan dadana Maxamuud Ahir la yiraahdo wuxuu yiri barcaagadahan aynu dukaamada dhigno aynu waddankii barno كل واحد تسدون أنا هذا بيتوين أنا قاعد قايمين China waxaan ka soo sameynay caagado lacag haya lacagta ku dhex muuqato oo qofku ku ridaayo 500 ku shilin qof waliba wixii karaankiisa ah dadana konton caagadood baan u geynay kontonkii caagadood 20 cisho ugu horeeyay $1 bay soo $200 bay soo saareen marka waxa weeye qorshay waxa weeye ima kale waxa 280 baa marka China ka soo socda 10 ku soo inuu dadasomay مع درسة تما كل $1 بينقل أي نقطة لما بقول يسنين تما صوص عدا ما هو هرجيسان وجينا يبر عيو إذا كتينا وان إذا هينا تينو different تينو بكده وتاي وينقو إنكو كوينس كاورو سو كوينس ملهدين كوينس كايدو كورونا سا وان نديك إن شاء الله عقلها سي لما بقول يسنين توي hargeysa way kontonkii milyan tijaabadaha way ku najaxeen waxa dadka wax bixiya dad baa waxay ku fikiraan tijaarta wax bixisa dadka wax bixiya waa danyarta waxa bixiya farmiisiyada dukaamada yar ee booshariyada meelaha ugu buuxsamay ugu meelaha tala kontonkii milyan way shaqeeyaan 200 imika hargeysa ugu tala galay 48 kana waxaan ugu tala galay burco iyo boora baan ugu tala galay way waa tijaabo sida u shaqeeyaan baan eegnaa haddii afarta kaas marka shaqeeyaan iyagana waa nuu kordhinayna gabiilay baa ku xigta saaxil baa ku xigta laascaanood iyo iyaga iyo ceergaab ayaa ku xiga marka sidaas aan u wadaynaa meelba sida hawsha u socon lahayd marka haddii aynu caagadaha sameeyno iyagaas ku filaanaya waayo marka waxaad qiyaastaa halka kontonkii caagadood 20,200 ka soo saareen 200 caagadood maxay soo saarayaan dhakhtarada aynu dhigaynaa farmasiyada yaala qof walba saas isu daaga ruuxan waa maxay annaga u dhoofnay markii inamada la rumaysan waayo la isiri malaa way ku shaqaysanayaan annaga u tagnay marka runtii waan demoqraasi waqti badan inoo ma harsanaa waxaan u baahanahay inaynaan intaynu cajalada daawano ayna halkaa kaga tagin waxaan u baahanahay dadkeena inaynu gurmano waayo iyaga cid uma hadlayso kan kale waa loo hadlaya qof kan kale uu hadlanaya iyaga cid uma hadlayso marka waxa weeye inaynu dadkeennii waxaan doctor Yacoob naga codsanaya bal anu ma dhimirka ceeb ma haysanay kelmadda dhimirka macnaheedu wuxuu yahay inay ceebta ku dhaqantay jamaa garan waa kan loo sheegay laakiin dhimir inaynu iyada ku dheeday doctorka inoo sheegi doona marka waa mahadsantihiin wixii haddii wixii kalena aadan baa insha Allah idinku dari doona